runtii waxaan aaminsanahay qof kasta oo runtii hammi inuu waddankan wax ka bedelo siyaasaddu u furanta inuu tartamo duruufta jirtay ee Soomaaliya ilaa iyo 60kii markaan dawladnimada qaadanay waxaa moodaa dadka Soomaaliyeed inaysan u diyaarsanayn inay dawladnimadaas ama dawladdii sax ahayd oo ayagu ay rabeen aysan u suura gelinin nidaamkii dawliga markaa xorriyadda qaadanay waxaanu ka dhaxlay nidaamkii gumaystihii ka tagay wax kabacdina waxaan ku guuldarraysanay inaanu sidii la rabay uga shaqaysiino sababtay doonta ha ahaato xadaarada hooseysay aqoonta hooseysay fahamka hooseeyay haba ahaatee wixii nalooga tegay oo nalagu wareejiyay gumaysigii ka tegay waa ka shaqaysin kari weynin markii xoogaa la soo fahmayna waa ku dirar oo waa la isku qabsaday oo meeshii waxbaa laga arkay inay nacfi leedahay nin walba yaan lagaa badsan reerkaaga yaan laga badsan ayay noqotay isku dirkii la isku diriray dhowr horena waa sheegay waxay ahayd waxaa ka dhashay in la boobo siyaasaddii in la isku dayo boobkii ugu horreeyey oo runtii aad mubaax ah oo la yaqaano waa SYL 69kii doorashadii ahayd inay SYL xoog u boobtay doorashadii oo qofka anagu rabnaa noqonaya xildhibaan lista unika wax la yiraahdo qof hebel lama sharxi karo hebel baa kursiga iskale corruption iyo boob siyaasadeed ayaa arrintaas ka dhacay boobkaas waxaa ka dhashay in madaxweynihii la dilo waxaa ka dhashay in military xoog ku qabsado oo hay'adihii dastuuriga ahaa iyo dastuurka dalka ay laalaan waxaa ka dhashay 20 sano inaanu ku hoos noolaano dictatoriyad iyo xukun maaragtay kali talisa waxaa ka dhashay dagaal sokeeye waxaa ka dhashay dawlad fashilan oo qabyaalad ku dhisan oo dhanna u dhaqaaqay hirgelino nidaam dimuqraadiyad ah oo aanu gaarsiino dadku inay doortaan mas'uuliyiinteeda oo doorasho qof iyo cod ah iyo nidaamka xisbiyada badan inaanu waddanka gaarsiino ayaa naga go'an oo haddii ilaahay na gaarsiiyo doorashada soo socota ay dhacdo aanu u gudubno aan ballan qaadno sanadka 2025 doorasho qof iyo cod dalku inuu gaaro xisbiyada badan uu ku gaaro laakiin mar walbaba doorasho qof cod iyo codaha la qabanayo waa inay jiraan waxyaabihii ka horreeyey oo suuro gelinayay doorashadaas inay xor iyo xalaal noqoto waxaan ballan qaadaynaa inaanu ilaalinayno xorriyaadka iyo xuquuqda dastuurka uu ugu qoran ama uu siiyey muwaadiniinta oo mar walbaba ay helaan aan laga hor iman karin xilligay doonaan mudaharaadi karaan waxay maaragtay xorriyad qowlkooda ay xor u yihiin cidday rabaan ay ku biiri karaan ururkay rabaan ay samaysan karaan ururkay rabaan ay la shaqayn karaan macnaa xorriyaadkaasoo dhan iyo xuquuqda dastuuriga ee shacabku leeyahay iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed waa inay noqdaan lama taabtaan